بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha Update Sports. qodobo muhiim ah ayaan ku soo qaadanaa barnaamijkeena. qodobada maanta aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena ciyaaraha Update Sports na markaa waxa ka mid noqon doona xalayto waa la kala baxo suuqa kala iibsiga ayaa xalayto soo xirmay qaaradda Yurub gabi ahaan iyadoo ciyaaryahanna aan la filaynin naadiyaasha markaa ay kala qaateen. dhanka kale haddii aan fiirino qodobo kale oo muhiim ah ayaa markaan ku soo qaadan doonaa naadiga lagu magacaabo Barcelona oo ku fashilmatay inay naadiga United ka qaadato xidiga lagu magacaabo Edinson Cavani. naadiga lagu magacaabo John Henderson oo heshiis cusub u saxiixay naadiga lagu magacaabo Liverpool. qodobada kale wararkeena aad ku maqli doontaan markaa waxaa ka mid noqon doona naadiga lagu magacaabo Chelsea oo soo qaadatay xidiga lagu magacaabo Araujo. Antoine Griezmann oo dib ugu laabtay naadiga lagu magacaabo Atletico Madrid. qodobada kale wararkeena aad ku maqli doontaan markaa waxaa ka mid noqon doona nambarka 7 oo CR7 calaamatul cajiib laga saaray calaamatu su'aal. haddaba wararkaasi maxaa ka jira in Ronaldo markaa uu xiro doono nambarkaasi. Rio Ferdinand oo u qiray Cristiano Ronaldo inuu yahay halyeyga Old Trafford mustaqbalka kubadda cagta intii uu joogay garoonka Old Trafford oonan arkin xidig u dhigma xidiga lagu magacaabo Cristiano Ronaldo. haddaba Rio Ferdinand wuxuu ka sheegay Ronaldo muxuu ku amaanay xidigaha suuqa kala iibsiga xalayto la kala wareegay ayaa markaa soo qaadan doona saacadihii ugu dambeeyay waana soo xirmay suuqa kala iibsiga naadiga Arsenal oo soo saartay shaxda horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan kulamada ay soo ciyaartay mooyee kulamada kale ay ku ciyaari doonto ayay maanta markaa soo bandhigtay. haddaba sidee bay tahay shaxda naadiga Arsenal xilli ciyaareedkan markaa ay ku ciyaari doonto iyadoo naadiga Liverpool leeyahay Virgil van Dijk wax badan ayuu ka bedelay habacsanaantii naadiga lagu magacaabo Liverpool. dhanka kale haddii aan fiirino Mikel Arteta oo la sheegayo naadiga Arsenal oo rabo inuu ka dhigo naadi kale isagoo shax xoog leh markaa sameynaya xilli ciyaareedkan maantana markaa la arkayay Daniel James oo sheegay in record naadiga Manchester United markaa ay ku iibisay laakiin xidigan wajigiisa kuma wanaagsaneen inuu markaa ka tago garoonka Old Trafford sida markaa ka muuqatay. madaxweynaha Spain oo ka hadlay naadiga lagu magacaabo PSG iyo waxyaabaha uu ka sheegay qaaradda Yurub xilli ciyaareedkan. haddaba wuxuu ka yiri naadiga lagu magacaabo PSG difaacyada naadiga lagu magacaabo PSG markaa oo la soo saaray haddaba iyay ka dhigeen xidigaha markaa loogu talagalay xilli ciyaareedkan markaa naadiga inay ku shartagto suuqa kala iibsiga waa soo xirmay. amaaligooyinka qaaradda Yurubna ciyaaryahanadii ay kala qaadan lahaayeen waa ay kala qaateen. waxyaabaha wargeysada ay qoraan suuqa kala iibsiga xidigihii ugu dambeeyay maba jiro suuq kala iibsi dambe oo la akhrin doono laakiin ciyaaryahanada waa laga faalan doonaa. waxaan soo qaadan doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga wargeysada ay ku qoraan ayaan ku soo qaadan doonaa gabi ahaan barnaamijkeena ciyaaraha Update Sports. annagoo eegi doona waxyaabihii ugu abdeedsanaa ee markaa kubadda cagta haatan markaa update-ka ka ayaa markaa eegi doona. ninka lagu magacaabo Edinson Cavani ayaa naadiga lagu magacaabo Barcelona markaa ay doonaysay inay naadiga United markaa ka dulqaado laakiin waxaa leeyahay United waa markaa helwaysa xidigani Edinson Cavani inay markaa naadiga United ka qaadato iyadoo xidigana la leeyahay booskiisa waxaa laga yaabaa in markaa xidiga lagu magacaabo Cristiano Ronaldo uu galo halka la leeyahay nambarka ay isku haystaan xidiga Cristiano Ronaldo isaga oo ah Edinson Cavani nambarka 7 kubilgaar ayuu u ahaa laakiin United Cavani ka hor xidig markaa haysta oo haysta kara waa ay la eedayaa leeyahay naadiga United. Ronaldo marka uu yimiday shalaytan oo xidiga lagu magacaabo Rio Ferdinand oo markaa inta badan ka faallooda waxyaabaha ku soo kordha naadiga United isaga xidigay ka mid yihiin Paul Scholes, Roy Keane, xidiga lagu magacaabo Ryan Giggs ayaa markaa waxa uu sheegay in Cristiano Ronaldo rigorooyinka bilzoonida Bruno Fernandes gabi ahaan uu kala wareegi doono. waa macallinkii garoonka Old Trafford ayaa markaa yimiday ayuu leeyahay nambarkan waxaa laga yaabaa Cavani markaa laga qaado ayaa laakiin suurtagal maahan walow xilli ciyaareedkan markaa la siiyay ayaa leeyahay xidiga lagu magacaabo Edinson Cavani suurtagalna ma noqon karto ayaa leeyahay markaa in xidigan markaa laga qaado nambarka ayaa markaa la leeyahay. dhankan kale markaa waxaan fiirinaynaa waxyaabihii suuqa kala iibsiga waxyaabihii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga marka uu soo xirmay xidigaha markaa la qaatay. Luke de Jong ayaa la sheegay naadiga Barcelona
inay markaa la leeyahay ay qaadatay ayaa markaa la leeyahay. Anthony Griezmann waa uu ka tagay naadiga wuxuuna ku biiray naadiga Athletic Madrid saacadihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga markaa uu soo xirmay. Anthony Griezmann naadiga Athletic Madrid ayuu ku biiray waxaana la sheegay in markaa lagu iibiyay lacag gaaraysa 40 milyan wuxuuna heshiis la gaaray tan June 2022 ayaa markaa la leeyahay. Sao Nuguis naadiga Athletic Madrid ayuu ka tagay xidigaha ay ka mid yihiin Cesar Azpilicueta xidigaha ay ka mid yihiin ayuu markaa la midoobaya ayaa leeyahay Marco Alonso oo markaa sii jooga Spain xidigaha reer Spain naadiga Chelsea ku sugan ayuu gabi hal la midoobi doonaa waxaana markaa 40 milyan qiimaha markaa la sheegay halka Sao Nuguis la leeyahay waa markaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ayuu markaa ku biiray naadiga ayaa markaa la leeyahay ciyaareedkan ayuu markaa ciyaari doonaa halka wararka ay leeyihiin xidigan markaa amaah ayaa lagu dhiibay laakiin haatan wararka caadiga ay qorayaan waxaa leeyahay 40 milyan oo heshiis ayaa markaa naadigan ugu biiraya naadiga Chelsea ciyaareedka soo aadan xidiga isbiirad leh waxaa leeyahay naadigan meesha laga gali doono ayaa markaa la yaqaanaa naadiyaasha Ingiriiska inay ishubeeyaan ciyaareedkan aad bay ugu wanaagsaneed walow United oo kale Liverpool oo kale laga yaabo inay iska celiso iyo naadiga lagu magacaabo Manchester City laakiin Arsenal waxaa leeyahay laakiin shaxda maanta la arkaya naadiga Arsenal ay soo saaraysay waa shax kale iyadana waxaa leeyahay markaa waxaa laga yaabaa markaa inay iska celiso ayaa markaa leeyahay. Kalam Hudson Odoi waxaa leeyahay wuxuu sii joogi doonaa naadiga Chelsea suuqa kala iibsigana waa ku soo xirmay waana nasiib u yeeshtay inuu markaa sii joogo ninka lagu magacaabo Edson Aguero naadiga Crystal Palace ayaa ku dhawaaqday inay markaa heshiis la gaartay naadiga Celtic ayana markaa ka soo qaadatay 15 milyan ayaana markaa la sheegay 4 sano heshiis ayuuna la gaaray waana ka faa'iideysteen suuqa kala iibsiga inta uu ku xirmin ayaa wada hadallada markaa u soo gabagaboobay ayaa markaa la leeyahay. dhanka kale haddii aan fiirino dhanka kale naadiga Real Madrid ayaa leeyahay Mario Carlos ayaa markaa la sheegay inuu ka tagay naadiga aan la sheegay naadiga lagu magacaabo ونادي لقوم قعابه أنسلوتي أيام مركا عليها النادي مركا قراءة وسكعية ومركا عيد كان هذا أيام مركا اللي هاي لأنك كلا هذه أمبينا الوحياة مركا أيام مركا جراء لينا الميزة هي ديدي إن ويل كيس هي لها ماتيو نكلا لقوم قعابه إنه مركا نادي بي إس جي وحياة مركا ومركا عليها النادي بي إس جي أيو ديدي ويل كيا مركا اللي هي إنه aad uma jecla ayaa markaa leeyahay wuxuuna bartaa ayaa leeyahay qaabka wanaagsan ee naadiga Barcelona ayaa wararka markaa ay qorayaan waxaa leeyahay nolosha naadiga PSG Paris Saint-Germain aad markaa uma jecla ayaa ninka markaa leeyahay ayaaba kale ayaa markaa wargeysada suuqa kala iibsiga intay socdeen markaa ay qorayeen hadii markaa aan fiirino Nuno Mendes ayaa markaa ku biiray naadiga Paris PSG wuxuuna markaa la midoobay xidiga ay ka mid yihiin Ashraf Hakimi xidiga ay ka mid yihiin Sergio Ramos ayaa leeyahay naadiga PSG difaaca dambana aad bay iskaga adkaysay xilli ciyaareedkan ayaa markaa leeyahay Tottenham Hotspur ayaa markaa waxa leeyahay Uri ayaa markaa Sergio Uri ayaa markaa qaadatay ayaa le contract ay la gaartay xilliyadii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ayaa leeyahay Barcelona ayaa soo gabagabaysay waa sida markaa wararka ay qorayeen wararkii ugu dambeeyay markaa suuqa hadii liiska aan fiirino xidigaha ugu caansan ee markaa la qaatay Sao Nuguis Chelsea Anthony Griezmann naadiga Athletic Madrid Luke de Jong naadiga Barcelona ayaa markaa leeyahay waxyaabihii ugu dambeeyay Swansea City Michel Obafemi ayaa markaa qaadatay ayaa le Southampton ayuuna markaa ka yimiday waxyaabaha markaa ay qorayeen ayana markaa ka mid yihiin wargeysyada maanta laga faaloonayay ayana markaa ka mid ahayn Sao Nuguis meel kasta isaga ayaa markaa ku bilaabanaya meel kasta oo aad gasho isaga ayaa markaa ku bilaabanaya annagoo waxyaabo kale markaa eegi doona ayaa markaa fiiri doona xidigaha kale waxaa ku jira Marcos Bertagnoli ayaa markaa la leeyahay ayaa ka mid ah xidigaha la qaatay Sao Nuguis Romelu Lukaku xidigihii xilliyadii ugu dambeeyay diiradda markaa saarnaa ee baxay waxyaabo kale ayaa markaa eegi doona waxyaabaha kale ee wargeysada ay qorayaan ayaa markaa eegi doona annagoo fiiri doona waxyaabo kale ee taariikhda kubadda cagta oo kale xidigihii shalayto markaa dabaaldegay oo kale haddii aan fiirino maanta oo kale waxaa leeyahay shalayto oo kale Kylian Mbappe ayaa ku biiray naadiga 4 sano ka hor naadiga PSG wuxuuna markaa u saftay xidigan 175 ciyaarood 135 gool ayuu dhaliyay 63 goolna wuu caawiyay wuxuu markaa ku guuleystay Ligue 1 3 jeer Copa da France ayuu qaaday
Copa del League ayuu markaa qaaday waxaa markaa leeyahay laba jeer waxaa leeyahay trophy des champions oo markaa laga ciyaaro horyaalka Ligue 1 waddanka Faransiiska ayuu qaaday sidoo kale abaalmarinta Ligue 1 top goal scorer wuxuu qaaday 3 jeer Golden Boy hal jeer ayuu qaaday Copa Trophy hal jeer ayuu markaa qaaday Star Boyna wuu noqday xidiga lagu magacaabo Kylian Mbappe dhanka kale xidigaha oo xilligaas oo kale oo markaa ku biiray naadiyaasha waxaa markaa ka mid ah 17 sano ka horna xidig lagu magacaabo Wayne Macaroni ayaa markaa ku biiray naadiga United wuxuuna ka yimid naadiga Everton 559 ciyaarood oo u saftay naadiga lagu magacaabo Manchester United gabi ahaan xidigana oo saftay waxaa leeyahay wuxuu dhaliyay 253 gool 146 gool lagu caawiyay hal horyaal ayuu ku guuleystay wuxuu ku guuleystay League Cup ayuu hal jeer qaaday ayaa markaa la leeyahay dhanka kale Community Shield hal jeer ayuu qaaday UEFA Champions League hal jeer UEFA League hal jeer ayuu qaaday FA Cup hal jeer koob kale ayuu markaa qaaday ayaa leeyahay oo CWC la yiraahdo ayuu markaa naadiga United waa xidigaha top scorer ugu wanaagsan ee soo maray taariikhda kubadda cagta dhanka kale xidigii mashalleeyaha ahaa naadiga Real Madrid spiritka badnaa Sergio Ramos haatan ku sugan naadiga PSG ayaa la sheegayaa 16 sano ka hor maanta oo kale inuu ku biiray naadiga Real Madrid wuxuuna 27 milyan ayuu markaa kaga biiray ayaa markaa ugu biiray naadiga Real Madrid ayaa leeyahay wuxuu sabtay xidigani 671 ciyaarood 101 gool ayuu dhaliyay waa xidig aan la taaban karin waxaa leeyahay weeraryahanada qaaradda Yurub qaarkood ma sameeyaan ayaa leeyahay xidiga oo markaa caan haatan weeraryahanada ka ciyaara ayaa 101 gool markaa dhalin 40 wuxuu caawiyay 40 gool ayaa markaa leeyahay waxaa leeyahay 216 kaar oo yellow cards ayuu qaatay red card waxaa ninkan markaa loo xareeyay 26 jeer ayuu markaa qaatay La Liga wuxuu ku guuleystay 5 jeer UEFA Champions League 4 jeer CWC oo qaada 2 jeer ayaa markaa Super Cup 4 jeer Super Cup sidoo kale 3 jeer ayuu markaa qaada ayaa markaa leeyahay mar kale haddii aan fiirino Copa del Rey 2 jeer ayuu ku guuleystay waa kabtanka legendiga soo maray xulka waddanka Spain ee naadiga lagu magacaabo Real Madrid ayaa leeyahay haatan naadiga PSG ayuu markaa ninkan u ciyaaraya waxaan fiirin doonaa waxyaabaha kale ee wargeysyada markaa haatan ay qorayaan iyo waxyaabaha laga soo calaamadeynayo ayaa markaan fiirin doonaa Sauzal Nuguis ayaa maanta wargeysyada markaa saaran Manchester United ayaa markaa waxaa la sheegay Paul Pogba Cristiano Ronaldo inay markaa isla aysan doonto xilli ciyaareedkan xalaytana waxaa la filayay war la yaab ah inuu markaa suuqa kala iibsiga xalay 6 saac uu ku eka inuu markaa soo baxo laakiin waxaan leeyahay Ronaldo Pogba xidiga ay ka mid yihiin xidiga Jose waxaa leeyahay sida uu noqon doono qaab ciyaareedkiisa kulamada uu ciyaaray nin kulul uma ekeen ayaa markaa leeyahay ninka James la yiraahdo ayaa dhaam walow kulamada dambe wuxuu ka keeni doono markaa aan la sheegi karin laakiin waxaa laga yaabaa inuu la qabsado Bundesliga xidigaha ka yimaadana horyaalka waddanka Ingiriiska sidii uu la qabsadaan aad bay markaa u adagtaa ayaa markaa leeyahay waxaana la arkay Ole Gunnar Solskjaer oo markaa quslaya waa dhoola cadeynaya ninka xidiga wuxuu haystaa xilli ciyaareedkan la yaab leh ayaa markaa la leeyahay dhanka kale haddii markaa aan fiirino waxyaabo kale ayaa naadiga Manchester City aad bay xilli ciyaareedkan taageerayaasha leeyihiin waan adagnahay Ronaldo tababaraha Portugiiska ayaa ka hadlay wuxuuna sheegay Cristiano Ronaldo in naadiga Manchester United wax badan uu ku soo kordhin doono waa ayna ka heshay ayuu leeyahay xidigani qaab ciyaareedkiisa aad u wanaagsan ninkii kalena Mbappe ahaana suuqa kala iibsiga uu ku soo xirmay 200 lacag la jira ayaa loo gaaray naadiga lagu magacaabo PSG waana diiday xidigani waa kulamadii ugu dambeeyay waa xidiga kaliya ay ku gaarayeen guulaha ayaa markaa leeyahay Neymar iyo xidiga lagu magacaabo Lionel Messi isaga ayaa xidigani markaa xilli ciyaareedkan ka wanaagsan Real Barcelona waxay qalad ku sameeyay markii ay kala geysay ayuu burburka ku bilowday xidiga lagu magacaabo Neymar iyo Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa leh Suarezna haatan ayaa Antoine Griezmann la midoobay la yaabka ay noqon doontaa markay midoobeen Neymar iyo Cristiano Ronaldo Antoine Griezmann iyo xidiga lagu magacaabo Luis Suarez ayaa markaa midoobay waana la yaabka markaa waxyaabaha wargeysyada haatan markaa ay qorayaan oo la leeyahay isku daysashada markaa ay sameeyeen ayaa leeyahay xidigaha reer Barcelona waxay u sababi doontaa inay naadiga Barcelona markaa wax badan ay iska bedelaan xilli ciyaareedkan iyadoo la leeyahay xidiga lagu magacaabo Depay aad buu wanaagsan yahay haddii Aguero dhaqso uu soo bogsoodana naadiga wax badan ayay markaa iska bedeli doonaan ayaa markaa la leeyahay
dhanka kale haddii aan fiirino Mikel Arteta wuxuu leeyahay Kieran Tierney waa xiddiga aad u wanaagsan oo naadiga aan u xaqiijin karo isaga iyo Emile Smith Rowe waa xiddigaha ugu marka ugu muhiimsan ayuu markaa leeyahay dhanka kale Liverpool Virgil van Dijk difaaceeda dhexe aad buu wax badan ugu bedelay ayaa leeyahay runta haddii la sheego waxaada kalsoonida naadiga Chelsea ay ku ciyaaraysaa ayaana ka muuqatay Daniel James aad ugu faraxsaneen naadiga United inuu ka tago وعليه ولو 30 مليون لعق كقاضتي أي كفايدة ابن نيوسون نادي يونايتد مركا ورئيسي كقاضيسي يقول لي هاي هذا مجعلين النادي يونايتد مركا إلى كتبه لأنك كلا هذه مركا في رينون وحيا بكلا أيام مركا جراء ورجيسنا مركا القريان هذه مركا في نيو أنتوني كريسمان أيام وعد سوق كريبسيجا لأنك كلا من حوينها للي جها ninka lagu magacaabo Javier Tebas ayaa markaa sheegay naadiyaasha qaaradda Yurub ugu qatarsan ee iska ilaalin karaan haddii aan la barbar dhigo ayuu leeyahay naadiyaasha qaaradda Yurub oo idin waa naadiga PSG league waddanka Faransiiska markaa ka dhisan wuxuu leeyahay bedelkooda ciyaaryahanada keedka tutulaariyaasha kulli waa isla mid ayuu markaa leeyahay waana il gaara markaa lagu hayo Haasbariskana kabitaankeeda iyo Harry Kane waa isu joogayaa maxaa yeelay suuqa kariibsiga waa ku soo xirmay haddii dib u furma ay heli doonto lama ogaaya markaa leeyahay waxyaabaha markaa ay furayaan leedisna James ayay ka faa'iideysatay waxyaabaha markaa update-ka ayana markaa ka mid yihiin naadiga Arsenal shaxaya markaa soo qaadanaysa waxaa leeyahay naadiga lagu magacaabo Arsenal shaxdii ugu yaabka badneed ayay markaa soo qaadanaysa naadiga Everton ninka lagu magacaabo Salomon Rondon ayay markaa oo 31 jir ayay kontrakti suuqa kariibsiga oo Chelsea markaa ayay soo qaateen ayaa leeyahay naadiga Chelsea markaa ka ciyaara lagu magacaabo Sad Belay ayuu professional markaa ka ahaa xiddigani waana ay soo qaateen ayaa markaa leeyahay waana xiddigaha laga faa'iideystay suuqa kariibsiga intuu xirminaya markaa leeyahay naadiga Chelsea naadiga Athletic Madrid ayaa ka mid ahaa Hector Bellerin waxa la arkay isagoo markaa naadiga Real Betis fanaanadeeda markaa lagu soo bandhigayo inagoo markaa fiirin doona waxyaabo kale naadiga waxa la PSG xiddigaha difaac ugu ciyaari doona ayaan fiirin doona xiddigaha ugu muhiimsan xilliyaareedka markaa ay soo qaadatay Ramos Messi Donnarumma Wijnaldum Achraf Hakimi iyo Nuno Mendes ayaa leeyahay xiddigaha ugu culus ee naadiga PSG xilliyaareedka markaa ay soo qaadatay ninkii Raul Neguez waxa la arkay isagoo markaa dabaaldega aad u ballaaran markaa sameynaya oo dabaaldegaya عليا نيكا والد دبالدق ayuu qabaa spirit waa lagu ogaa United ayaa ku waarato marka rabtay inay soo qaadato xidigaha waxa leeyahay qamaamurta inay marka ka mid noqoto ayay marka doonaysay ayaa marka leeyahay walow marka ay u suurta galinaya leeyahay naadiga United ayaa marka leeyahay waxyaabaha laga soo calaamadiyay ayana marka ka mid ahaayeen haddii marka aan fiirino shaxdan naadiga Arsenal ay soo qaadatay ayaa marka eegina reer Arsenal balaarka Lacazette nasiib ayaa u yeelatay inuu markaas sii joogo waxay shaxda tuurteen Lacazette ninkii Aubameyang shaxdan kuma jiro Aubameyang shaxdan kuma jiro Smith waxa ku jiro Emile Smith Rowe waa qadbada dhexe Odegaard iyo Bukayo Saka waxaana ka horeeya ninkii lagu magacaabo Lacazette Thomas Partey iyo Lagungo ayaa markaa jooga qadbada dhexe xiddig lagu magacaabo Tierney iyo xiddig lagu magacaabo Gabriel iyo Ben White iyo xiddig lagu magacaabo Tamayuzo ayaa markaa waxay joogaan ayaa leeyahay difaaca afarta dambe Lennon Ramsdale waxa laga dhigay goolhayaha shaxda naadiga Arsenal waxa laga yaabaa wax badan inay markaa ka bedesho waana Arteta shaxdii ugu wanaagsaneed markaa uu soo bandhigo ayaa markaa la leeyahay waxyaabaha laga soo calaamadeeyay ayayna ka mid yihiin ayaa markaa la leeyahay gudahaan barnaamijka ciyaaraha update sports iyo suuqii kala iibsiga oo soo xirmay halkaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa page-ka iyo waliba YouTube-kana waxaan markaa dadweynaha ka codsanaynaa laagtii sheerta markaa inay ku qabtaan inta ku kulmi doono mid lamidana waxaan idin leenahay nabadgelyo